ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo doonaya inay ka mid noqdaan ururka deegaan soor. Shuruudaha hubinnimada ururka deegaan soor: 1. Da'da hubinta waa inuu qof ka weyn yahay 18 sano. Qofka ka yar 18 sano wuxuu ku biiri karaa qaybta dhalinyarada youth wing oo leh hawlo gaar ah. 2. Dabeecad iyo anshax waa inuu leeyahay dabeecad wanaagsan iyo ixtiraam bulsho. waa inuusan ku lug lahayn falal wax u dhimaya deegaanka ama bulshada. 3. Hubinnimada bulshada waa inuu ka tirsan yahay bulshada deegaanka oo ku nool yahay. waa inuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato howlaha bulshada sida nadaafadda, beerista dhirta iyo wacyigelinta dadka kale. 4. Dhiirigelinta iyo ka qaybgalka waa inuu leeyahay rabitaan dhab ah oo ku difaacayo deegaanka iyo horumarinta deegaanka agaaran. waa inuu ka qayb galo xukuumada iyo tababarada iyo ololayaasha ururka ugu yaraan 70% sanadkii. 5. Bixinta qarashaadka ama xubinnimada waa inuu bixiyaa lacagta xubinnimada haddii ay jirto si loo taageero howlaha ururka. lacagtu waxay noqon kartaa mid sanadle ah amaba bil kasta iyadoo go'aanka ay leeyihiin maamulka ururka. 6. Raacista xeerarka ururka waa inuu aqbalaa xeerar hoosaadka iyo dastuurka ururka. waa inuu ixtiraamaa go'aanada guddiga maamulka. ma rabtaa inaad ka mid noqoto ururka deegaan soor? haddaba haddii aad buuxin kartid shuruudahani hubinnimada ururka waad ku soo biiri kartaa ururka. waa mahadsantihiin.